dhammaan shabakada malcab.com aad baan u salaamayaa ugu horeeya saaxiibkay Axmed Tayo iyo shaqaalaha guud ahaanba shabakadan. Runtii markii la soo magacaabay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sool waxay ahayd xilligii Ramadaanta ka hor. Waxaa jiray waqtiyo fara badan oo adag oo ilaa hadda lagu jiro qaarkood. Waxaan la kulmay carqalado fara badan oo ay ka mid yihiin xanuunka COVID-19 bishii Ramadaan oo markaa iyaduna taagnayd. Adoo carqaladaha iska jiray hase ahaatee wixii oo dhan hadda waa laga soo gudbay walow uu weli xanuunkii sii jiro uusan adduunka toos uga wada bixin. Haddana waxbaa kala furfurmay. Runtii tallaabooyin fara badan ayaan qaaday intii aan halkan joogay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sool. Ugu horreynba waxaan kulamo la qaatay kooxihii kubadda cagta ee gobolka dhammaantood, kooxaha heer koowaad, heerka labaad iyo heerka saddexaad oo marka la isku daro gaaraya ilaa 60 kooxood. Dhammaantood kulamo gaar ayaan la qaatay oo aan is afgaranay. Ilaahay ayaa mahad iskale, Ilaahay ayaan ugu mahadnaqayaa. Sidoo kale waxaan socdaal ku tagay qaar ka mid ah deegaanada gobolka Sool ay ka mid tahay degmada Igoori ee gobolka Sool. Halkaas aan kulan kula soo qaatay dhalinyarada degmadaasi oo aan ka wada hadalnay wixii baahiyo jira iyo sidii loo wada shaqeyn lahaa iyo sidii wax loo wada qabsan lahaa. Runtii waa soo afgaranay 2 maalmood ayaan ku maqnaa. Sidoo kale hadda waxay u qorsheysan inaan tago deegaano fara badan ay ka mid yihiin kuwa hoos yimaada gobolka Sool sida degmada Kalabaydh, degmada Xudun, degmada Boocame, deegaanka Tukarraq iyo deegaanada kale ee adugu faraha badan. Runtii dhalinyarada deegaanadaas ku sugan waxay u heelan yihiin in waxqabad iyo la gaarsiiyo iyo horumarka ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland ay markasta dhalinyarada la garab taagan tahay. Waxaan rajeyn doonaa inaan wax badan ka qaban doono bahda ciyaaraha iyo isboortiga iyo dhalinyarada ee gobolka maadaama aan ahay mas'uulka ugu sarreeyay. Insha Allah waxaan ballan qaadi doonaa inaan wax badan ka qaban doono. Sidoo kale waxaa qayb ka ahaa markii la soo magacaabay oo aan la kulmay dhismaha garoonka kubadda cagta ee Cabdi Bile Cabdi ee magaalada Laascaanood oo ay jireen dhismayaal fara badan oo wajiyo badan soo maray oo garoonka lagu sameeyay. Xukuumaddii madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyo ee kulmiye ayaa sanadii 2012 bilowday dhismaha garoonka oo deyr iyo kaarboon ku bilowday. Wajigii labaad isla xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyo ee xisbiga kulmiye ayaa markii labaadna ballaarisay garoonka oo hagaajisay isla markaana roog cagaar ah dhigtay. Wajigii saddexaadna madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee xukuumaddiisa xisbiga kulmiye ayaa iyaduna sidoo kale roog cagaar ah dhigtay oo qalabaysay oo garoonkii ballaarisay. Haddana gacanta ayaa weli lagu hayaa, kaarboonka ayaa la ballaariyay dhinac walba. Kor ayaa loo qaaday gidaarada, kaarboonada waa la ballaariyay, VIP shuba ayaa loo sameeyay. Dhismuhu wuu socdaa si gabagaba maalmo dhow ku soo dhamaan doona insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan rajeyn doonaa inaa taasina guul nagu soo dhamaato garoonka maadaama ballaarinta garoonka aan xilligan la kulantay aanu doonanay siduu wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland Boos Mire Maxamed uu hore u sheegay in lagu qabanayo isla heerka gobolada bari koobka dalka dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Somaliland in lagu qabto magaalada Laascaanood ay marti geliso. Wasiirkuna meel fagaara uu ka sheegay xilli hore in lagu qabanayo isla heerka gobolada bari magaalada Laascaanood ee garoonka Cabdi Bile Cabdi ee gobolka. Taas ayaa kaliftay in ay xukuumaddu ballaariso garoonka si uu u qaado kaarboon fara badan iyo marti badan oo ka soo qayb geli doonta koobkaasi. Walow ay sanadkan carqaladaha ay ka mid yihiin xanuunada iyo howlaha jira ay hor istaageen koobka, haddana qorshaha wasaaradda ayaa qayb ka ahayd in la qabto koobkaasi marka uu xanuunadan iyo waxan ay iska baxaan in 21ka insha Allah la qaban doono wixii qorshayaal ay wasaaradda u yaalay. Qayb ayay ka noqon doontaa gobolka Sool koobkaasi. Waxaan rajeyn doonaa inaan marti gelin karno dhammaan gobolada dalka oo dhan iska daabare. Marka insha Allah waxaan rajeyn doonaa inaan qaybteeda ka qaadano dhismaha garoonka iyo warbixintiisuna halka ayay maraysaa. Wasaaraddu waxyaalo fara badan ay aan dheernahay baa jira gobolada kale ee dalka sida systemka kala iibsiga ciyaartoyda aysan ka jirin dhammaan gobolada. Magaalada Laascaanood waxay sidwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sool hore u soo ahaa in dhalinyaro firfircoon isla markaasina ka yimid wadanka Ingiriiska isagoo halkaasi shaqooyin fara badan oo dhanka isboortiga ka soo qabtay ay ka mid ahaayeen inuu tababare ka ahaa ciyaartoyda 12 jirada
ee kooxda Manchester City ee magaalada Manchester City. Waxyaalo badan isagu u dhuunduroolay iyo casharo badan oo dadka dheera ayuu halkan la yimi iyo carcar fara badan, taasi ayaa sababtay in isboortiga gobolka kor loo qaado. Systemka aan ka hirgelinay halkan ay wasaaradda iga horeysay isduwii iga horeeyay sii hirgeliyay waxaa ka mid ahaa in ciyaartoy ay kooxdu markay iibsanayso lacag lagu kala iibsado sida caalamka, in heshiis laga saxo sanado ah. Haddii la doonayo in la burburiyo heshiiskaasi, in kooxdu ay ku burburin karto qadar lacag oo cayiman, sharciga iyo dastuurka wasaaradda noo yaalla oo ah in la raaco, isla markaasina ah lacag $180 ama $1,500,000 oo laana ah. taas ayaa ma garanaysaa systemkiisa la raacaa haddii la doonayo in la burburiyo heshiiskaasi. Haddii kalena si ay heshiiska yihiin baa loola kala wareegaa, wayna kala iibsadaan. waxa ay ku heshiiyaan qiimaha ugu sarreeya ayaa ah $1,500,000 ilaa adigu waxa u hooseeya ay ku heshiin karaan, iyaga ayaa ma garanaysaa isku afgaranaya. Marka wasaaradduna goobjoog ayay ka noqotaa, sidaas ayaana loola kala wareegaa. Runtii waxaan filayaa inaysan gobollada dhammaantood aysan lahayn. Waxaan rajayn doonaa in gobolladuna iyaguna ay systemkaasi ka hirgelin doonaan, wasaaradduna ay qayb ka ahaan doonto insha Allah. Runtii warbixinteedu intaas ayay ku koobnaa doontaa. Aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin. Guul iyo janno ayaan idin rajaynayaa.